8 Febraayo sanadkii 2017 oo hadda laga joogo 2 sano ayay ahayd markii xilka madaxweynenimo loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo waxa lagu tilmaamay madaxweynihii ugu taageerada badnaa dhinaca shacabka ee burburkii kadib qabta kursiga ugu sareeya dalka ee madaxweynaha. Bulshada Soomaaliyeedna meel ay joogtaba rajo weyn ayay ka qabeen in madaxweyne Farmaajo uu wax badan ka bedeli doono xaaladda dalka. haddaba 2 sano kadib niyad wanaagii iyo rajadii shacabku meel mar ma noqdeen oo dawladda Farmaajo ma qabatay waxyaabihii laga filayay. waxa su'aasha ka jawaabaya qaar kamida dadka Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha Dhadhaab. dawladda 2 sano oo madaxweynuhu joogay iyo ra'iisul wasaarihiisa ay joogeen waxyaalo fara badan oo dadka ay ka filayeen bay qabteen. waxyaalaha ay qabteen haddaan qodobeeyo waxa kamid ah hawadii Soomaaliya ay soo celiyeen deyntii oo ay ka raadiyeen laga cafiyo ay u raadiyeen lacagtii oo ay soo sameynayaan maxaabiista dibadda ay soo daayeen haykalkii dawladnimo ee siyaasadeed arrimihii siyaasadda dibadda oo ay ku guuleysteen oo isbarbaryaacay ay soo afjareen اللهم استعان على ما تصفون corruption kii iyo musuqmaasuqi oo ay la dagaalameen. laakiin waxyaabaha saxda ah ee madaxweynaha hadda uu qabtay iyo dawladdiisa ee aadana u taageersan waxa kamid ah dawlad wanaag dariska dawladaha dariska oo aniga ahaanteeda shakhsi ahaan wax badan aan daneenahay in xiriir wanaagsan la sameeyo iyo si wanaagsan loo xiriiriyo heshiiskii geeska Afrika ee Ethiopia habeenii dharaar aan cadow ka dhiganay oo heshiis wanaagsan iyo xiriir wanaagsan la sameeyay maxallijir Eritreadii mar walba aan ku eedeynay inay dagaal iyo dhibaato kale iyo waxyaabo ay taageertay iyo aan u eedeynahay xiriirka wanaagsan ee la sameeyay waxa fiican runtii ninka in fursad la siiyo Farmaajo wax fursad lama siinin dad mucaarad ayaa taagan marka wax qabadkiisa waxaan ku ogaanayaa inta hadda uu soo maray wax uu qabtay laakiin waxa la rabaa in fursad la siiyo fursad ma haystay macal uu eeday kara waxa kamid ah horumarka tacliinta iyo moraalka ciidamada way dhistay hawada Soomaaliya way soo noqotay cid walba Soomaaliyeed way dareemaysaa waxaad kala ka garan kartaa dawladda dhaqaalaheeda ugu kobcay laakiin waxa balse jirto dawladda waa dawlad dhulka taalay qaran dhan oo dhulka yaalay dhulka haduu yaalay waqti dhow ma kici karo marka maalin waa inay tilaabo qaado maalinka dambana tilaabada labaad qaado waxyaalaha muhiimadda Soomaalida way garan kartaa wixii dan u ah wixii nabad diidaayay wixii qabqablaana warkiisa waa diiwaabo gooni kuwa waxa uu iska cadiyaa balse hadda shacabka Soomaali shacabka markaan ka hadlo shacabku uu dareemayaa dawladda inay dawlad macnaa meeshay joogto hor uga kacdo wanaagsan oo wanaag wadinay tahay 2 sano oo kale ayaa u dhiman madaxweynaha madaxda hadda jirta iyo golayaasha sharci dejinta ee dalka maxaa 2 sano ee dhiman laga filayaa inay dawladdu qabato 2 sano waxaan filaynaa inta ay noo qabteen iyo in ka badan baanu filaynaa ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu noo daayo kuwa shaydaanku ku kiciyay ee mataqaana doonaya inay ku qayliyaan ilaahay naga qabto kuwaana fariin baan u marinayaa miidiyaha waxaan leeyahay war haddii aan wax saxmin oo dawladnimada iyo sharcigu uusan saxmin hadda wiilku maxaad wax ku hagaysaan waxaan ka filaynaa wax wanaagsan oo fiican oo sida hadda ay tahay si ka fiican baan ka filaynaa Soomaalina waxaan ku goorgelin lahaa in uu sheegi lahaa haddii ay dan la qabato Soomaaliya in isaga la soo celiyo waliba soo socota haddii fursad la siiyo horumar baan rajaynaynaa laakiin lugaha lahaay laga sii deeyo saasaan dhilaanay dadka Soomaaliyeed oo aad u taabteen dhibaatooyin ka dhashay khilaafkii iyo ismariwaagii siyaasadda Soomaaliya ayaa aad ugu ooman dawlad Soomaaliyeed oo hanata amniga dalka waxaana sanadihii dambe muuqday ififaalo iyo idadiile ku aadan in dalku ka soo kabanayo dagaaladii aafeeyay ruux qarnigii la soo dhaafay. Axmed Cabdullaahi Jaamac xeryaha Dhadhaab.